asxaabta qaaliga ah iyo akhyaarta nagu cusub kulli waani salaamay. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marmar ma kugu dhacdaa intaa adoo iska ducaysanaysid ilaahay wax yar intaa ka barisid, tusaalo intaa ka barisid ilaahay $50 isii ama 100 isii, markaas ilaahay subxaanallah mar waxay ku aadaynamaysaa samadiyo furan. ilaahay casa wajal $50 ama $100 markuu kuu soo diro waxaad dhahaysa allah hadaa ilaahay ka baryi lahaa wax ka badan. That's why oo markastaba xitaa nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheego markaad ducaysanaysiin waxaa ku ducaysatiin firdowsil acla, yani jannada markaa ku ducaysanaysiin yani waxaa ku ducaysatiin heerka ugu sareeya, meesha darajada ugu sareysa. hamigiina markasta hami oo koraha ahaado, wax badan ilaahay ka bari. ilaahay waa qani, ilaahay waa kariim, ilaahay waa deeqsi. ilaahay subxaanahu watacaala lahu khazaa'in asamaawaati waalard. marka marna wax yaraa ka barin, wax badan ilaahay ka bari. sidii soomaalidana ku mahmaahdo weel weyn baa ilaahay lagu baryaa. marka sheekadeena arintaasi ku saabsan tahay maanta, laakiin intaa bilaabin saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka bilaabeynaa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. سان شيقني مركز دعيسانيسيد وين كنت دعيسو إلهي عز وجل دعاء بدن كنت دعيسو وحير إلهي كبري وح بدن كبري. qisada maanta qisad oo ma ah waqtiga nabiga dhacday ama waqtiga saxaabada dhacday, laakiin waa qisad mashhuur ah oo cibradeedana tahay inaa markastaba yani ilaahay casa wajal wuu ku siin doonaa kheer, laakiin markastaba ilaahay wax badan ka bari. marka qisadan waxay ku saabsan tahay nin saalax baa jiray. ninkii saalaxaga ahaa sakaraatulmowt, alxaq almowtu xaq, kullu nafsin daa'iqatu lmowt. sakaraatulmowt baa u imaatay. marka waxay noqotay inuu dee maxaa layidhaahdaa asagoo maradkii ama jiradii mowdka hayso, sariirtiisa asagoo ku jira, dadkii baa u imaaday, asxaabtiisii, dadkiisii, ahalkiisii, reerkiisii, caruurtiisii baa ag joogay. marka waxaa la maqlaa markasta asagoo dhahaya yaa laytahu kaana baciidan, yaa laytahu kaana jadiidan, yaa laytahu kaana kaamilan. allow fiicnaan laheedaa hadduu fogaan lahaa, fiicnaan laheedaa hadduu cuseeb ahaan lahaa, fiicnaan laheedaa hadduu kaamil ama wax yani dhammaystiran oo wax ama kaamil oo complete hadduu ahaan lahaa. intaas buu kusoo celcelinayay. markii dambe wuu ashaatay, wuu dhintay, ilaah u naxariisto. marka subxaan allah, nin kaloo saalix ah oo saaxiibkiis ah baa maalintii dambe ku riyooday, asagii ku riyooday laftirkiisa. marka wuu weydiiyey, wuxuu dhahay maalintii waa taa dhahaysay yaa laytahu kaana jadiidan, yaa laytahu kaana baciidan, yaa laytahu kaana kaamilan. waa taa dhahaysa allow hadduu cusboonaan lahaa, allow hadduu fogaan lahaa, allow hadduu complete ahaan lahaa, bal igaa sheekay arintaas maxay tahay. wuxuu dhahay markii aniga sakaraatulmowt ii imaatay, malaa'ikatu raxma, qofka sidiisaba qofka mu'minka ilaahay casa wajal waxaan ka baranay horta kulligeen aamiin dhaha xusnul khaatima. qofka markuu sakaraatulmowt haddii qaflo ku imaanin ama xitaa haddii qaflo ku imaato, anyway momentka of salaad maxaa layihahda sakaraatulmowt, malaa'ikatu raxma baa u imaata ibni aadanka qofka mu'minka ah. qofka mu'minka malaa'ikatu raxma u imaataa, way u bishaareynaysaa jannada, quruxda, waxa sugaya, waxa qabrigiisa ku sugaya, waxa jannada ku sugaysa. dabcan aayado badanna qur-aanka way jiraan. waxaa ka mid ah aayadan oo dhahaysa acuudu billahi min shaytaan rajiim, ina aladiina qaaluu rabbana allahu thuma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. tafsiirada qaarkood waxay ku saabsan tahay qofka markuu dhiman rabo, qofka mu'minka ah waa loo bishaareeya, malaa'ikatu raxma baa u imaanaysa, u bishaareynaysa jannada iyo kheyrka. ha welwelin, xabana ha ka welwelin, ilaahay baa u socotaa, kheyr baa u socotaa, wanaag baa u socotaa. marka way u bishaareynaysaa. marka rajulu saalixga, ninkan oo saalixga ahna sidii camalba wuxuu dhahay malaa'igtii baa ii imaato ii bishaareynaysa. marka ugu horeysa wuxuu igu bishaareysay qasri weyn. qasrigaas waxaa dhahay maxaa ku kasbaday ku helay. waxay dhaheen
ma xasuusataa maalin intuu kuu imaaday qof oo miskiin ah oo faqiir ah oo ku dhahay dhar aan gashto ma haysto, biliis waxaan gashta isii, markaasaad usoo bixisay qamiis ama adi shaati oo qadiim ahaad haysatay. sadaqadaas aad baxsatay darteed baa ilaahay casa wajal qasrigan kuu siiyey. markaas wuu farxay, yacni sadaqadaas yaraan baxsaday oo weliba maro qadiim ah baaba intaas ku helay miya. yaa laytahu kaana jadiida buu dhahay, marka alla haddii cusboonaan lahayd qasrigan kasii weyn baaba heli lahaa. marka tii labaadna waxaa la dhahay qasrigan kalena waxaa lagugu talagalay maalin waxaa jirtay oo adiga masjidkaad u socotay, waxaa la kulantay qof oo wheelchair ama qof curyaan ah oo socon karin, oo ilaahay casa wajal yani dhib ay ku ahayd imtixaan, dhib ay ku ahayd socodka, laakiin qofkaas wuu rabay inuu asagaba masaajidka aado. waxaad samaysay adigii waad xambaartay, asagii oo dhan baxaba wheelchair ma jirin, waad xambaartay, waad qaaday, masaajidkaad geysay. marka ajrigaas oo qofka muslimkaas oo curyaanka ahaa aad caawintay, aad qaaday, aad masaajidka oo la lugeysay darteeda baa laguu siiyey qasrigan labaad. wuxuu dhahay ma intaas yar, miskiinkaas yaraa caawinay oo meeshii dhaweed oo masaajidka oo aada noogu dhowaa oo aan ku caawina intaa xambaaro aan geeyey, maaba qasrigan weyn ku helay. yaa laytahu kaana baciida, allah hadduu fogaan lahaa masjidkaas waxay noqon lahayd socodkaas sii badnaan lahaa, tacabkaas sii badnaan lahaa, yani culeyska haduu intuu sii bato iyo waxa igu sii badan lahaa inta socod aa soconayo, marka ajirkaas sii badan lahaa, qasri kasii weyn baaba sii heli lahaa. daas way u dhahay yaa laytahu kaana baciida, yani inuu masaajidka hadduu fogaan lahaa maasha qasri kasii weynaaba heli lahaa, because moor baaba sii tacbaaya. marka tii saddexaadna waxaa layiri waxaa tiri yaa laytahu kaana kaamila, maxaa taas ka waday? wuxuu dhahay malaa'igtii again waxay igu bishaaraysay qasri saddexaad. markaan waxay dhahday ma xasuusataa mar adoo rooti wata ama khubus intaa yani dukaanka ama makhbaska meesha oo khubsiga lagu iibiyo, rootiga iyo muufada lagu iibiyo baad kasoo baxday, markaas nin oo miskiin baa kaa hor imaaday, marka hal muufaa sidatay ama hal khubus baa sidatay, waa kala jartay, qeybna asagaa siisay, qeybna adaa qaadatay, horaa usii socotay, waa ku sadaqaysatay ninkaas miskiinka ah. marka saas darteed qeybtaas yar yani khubiskaas yaraad ku sadaqaysato, weliba haaf jabkaas oo khubiskaad ku sadaqaysa dartiis baa ilaahay qasrigan saddexaad kugu dhisay. markaas haddana farxay, haddii oo yani muufadoo dhan hadaa wada siin lahaa ama khubiskao dhan hadaa wada siin lahaa, qasri ka weyn baaba intaas heli lahaa. marka yani maa naqasa maalu min sadaqa, subxaan allah, taas waxay ku tusaysaa inaa markasta ku dadaashid. tan hadda yani qisadan iskama sheegeyno, iskama dadaalo ma ah, wax inaa ka barana ugu talagalnay oo ah markaa wax sameynaysid ama hadaad duceysanaysid hami sare inaa ku duceysatid, hadaa action sameynaysid oo howl ku dhaqaaqaysidna inaa sida ugu dhammaystiran oo sida ugu fiican oo sida oo yani ku jirto itqaan, excellence sidii ku jirto, oo howsha hadii aad shaqeynaysid shaqada si fiican u qabo, half job ha qabanin, laba maxaa la yiraahdaa wax yar yar intaa samaysid hadhow ha dhihina howshii waa dhameeyey. si lilaahi u shaqeey oo quudkaada xalaal ha noqdo, because haddii dadka ku arkeynin, ilaahay casa wajal waa basiir, waa shahiid, waa samiic, wuu ku arkaya, wuu ku maqlaya, wuu kuu jeedaa, waa markhaati ilaahay casa wajal. marka waxaa fiican wax kasta markaa sameynayno, hadaa sadaqo baxsanayno sida ugu qurux badan inaan u baxsano, oo dadka ku rafaadinin ama hadallo ku tuurtuurin, ama maantao dhan qofkii adoo isla markiiba howsha dhameyn kara, maantao dhan qofkii waxaad keenaysaa inuu kugu soo noqnoqdo oo dhibaato iyo si rafaad leh wax lagaaga qaado. marka waxaa fiican inaa markastaba itqaan inaa la imaatid. that's why nabiga calayhi salaatu wasalaam dhahay ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu. markaa wax sameynaysid si lilaahi u samey, oo sida awoodaada iyo karaankaada ugu fiican u samey. half jobka iska dhaaf, shaqo oo shortcutka naga dhaaf,
waxaasoo dhan waxyaalaha oo dib marka keena waaye. hadduu hal qof sameeyo, 2 qof sameyso, mujtamacii oo dhan baa sameynaya, hadhow ummadii oo dhan, shacabkaasoo dhan wuxuu noqonaya shacab oo quality ma laha shaqadooda iyo howshooda. marka inaa qofka naftaada haddaa ka bilaabaysid, naftaada way bataa inaa ka bilaabdid. markaa wax sameynaysid sida ugu wanaagsan samey, sida ugu wanaagsan u samey, ajarna waa ka helaysaa, dadka wax u sameynaysidna way ku farxayaan, adigana xitaa kalsoonidaadii baad kusii ziyaadinaysaa, yani kalsoonidaadii yaa kuusii badanaysa, because wixii markaa outcomekii aragtid ama natiijadii markaa aragtid sida ugu fiican waaye, marka farxad bay qalbigaada gelinaysaa. marka intaasa kusoo koobaynaa sheekadan. ilaahay waxaan ka barinay kheyr oo dhan, ilaahay waxaan ka barinay aamiin dhaha, ilaahay xusna khaatima ka barinay, ilaahay inuu markastaba wanaag nagu abshiro oo noo bishaareeyo wanaag fi dunya wal-aakhira, ilaahay inuu naga dhigo yani ulaaika aladiina laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, adduunya aakhiraba marna walwal naguma dhacayo, marna warbahaa naguma dhacayo. ilaahay dadkaasuu sheegay, ilaah nagama dhigo min aladiina laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. markaa jiranahay, markaa caafimaad qabno, markaa sakaraatulmowt, xusna alkhaatima ilaah ka barin, markastaba anagoo faraxsan, xusna dan billaah, ilaahay casa wajal kheyr ka filanayna, wanaag ka filanayna, farxad ka filanayna adduunya aakhiro baa ilaahay ka barinay. markastana wax kastana wax weyn ah ilaahay ka barino, ilaahay jannatu lfirdows alaclaa baa ka barinay, wamaa qaraba ilayha min qowlin camal, camal kasta iyo wax kastoo ilaahay jeceliyo jannatu lfirdowsa na gelinaysa ilaahay waa ka barinay. ilaah noo fududeeyo, kheyr iyo caafimaad baa nigaa tagay. peace and love, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.